الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال كلمة دينا ما أنت وحي كسب سنان دونتا الغيبة أما وحا لو يقانو حنتا ولا ليال وحي كمتها دنوب تواوين وأنا كبيرة من الكبائر. إلهي سبحانه وتعالى أنا قرآن كيسو نوغر بي رسولك صلى الله عليه وسلم إن بدن أيو نوغدقي. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه قرآن كيسا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قاركين ييسان حمان قارك كالي مجعليه هي أحدكين إنو عنو هيلبك ولالكيس أوردنتي وادف سنيسان xantana waa sidaas oo kale walaalayaal waxay la mid tahay qof cunayo walaalkiis hilibkiisa asagoo dhintay ay la mid tahay. waa shay aad u liita oo qof kastaaba uu dhibsanayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yaa ii damaanad qaadayo inta u dhaxaysa labadiisa lafgareed iyo labadiisa lugood oo carabka iyo farjiga oo aan u damaanad qaadaa janno. waa labada ugu badan oo dadka naarta galiya weey walaalayaal. marka carabka aan iska ilaalino, carabka halistiisa aad ay u badan tahay, waana waxyaabaha dadka naarta arooriya oo naarta galiya ayuu kamid yahay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ahadkiin wuxuu ku hadlayaa kelimad uusan u aabayeelinin, kelimad xaqiisa ka fudud, wuxuuna kula hoobanayaa naarta 70 sano. wax yar maahan, waa 70 sano ayuu hoos ugu hoobanayaa naarta. wal ciyaadu billah. marka walaalayaal carabkeena yuusan halkaas nagelin. waxa laga yaabaa kelimadaas inaysan adiga agtaada wax weyn ka ahayn, inaad iska tiraahday, laakiin ilaahay agtiisa ay wax weyn ka tahay. ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. waa laga qorayaa, laba malag ayaa garbahaaga saaran. xanta maxay tahay marka? nabiga asaga ayaa noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhikruka akhaaka bima yakrah. xantu waxa weeye walaalka oo aad ka sheegto wax uu dhibsanayo. wax kasta oo walaalka uu dhibsanayo aad ka sheegto ama ha ku sifeysnaado ama yuusan ku sifeysnaanin waa xan. saxaabada qaar kamid ayaa weydiisay markaas ay yiraahdeen ka waran hadii walaalkeen wax aan ka sheegayno ay run tahay uu ku sifeysan yahay. markaas uu yiri faqad iqtabtahu. markaas waaba xamatayba. in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. hadii aysan ku sugnayn wax aad ku sheegaysana waad ku been abuuratay. marka walaalayaal carabkeena aan iska ilaalino, yuusan nagelinin meelaha halis ah.